mid ka mid ah bulshada ku nool degmada Baanisa ee ismaamulka Mandheera oo horay u ahaa xoolo dhaqato ayaa noqday beeraley kadib markii xoolihiisii inta badan ay ka dhamaadeen xilliyadii abaarta. Maxamed Xasan Ibraahim oo deegaanka looga yaqaano Wayaame waxa uu horay u ahaa xoolo dhaqato dhaqan jiray xoolaha sida geel, lo iyo ari. Waxa uu tilmaamay in markii inta badan ay ka dhamaadeen xoolihii uu go'aansaday in intii u hartay uu iibiyo isla markaana uu tabcado beer. magacaydu waxaa la yiraahdaa Maxamed Xasan Ibraahim. dadka meeshaan degan waxay ugu yaqaanaan naanees Wayaame aa lagu yaqaanaa beeraley waay. deegaankan aan joogno Baanisa la dhahaa. aniga zamaani xoolo dhaqataan ahay. geel aan qabe, eri aan qabo, lo aan qabe. marka cimiladu markii isbedelto oo kuleel iyo roob la'aan waxaan hadda markay imaadeen geeli iyo erigi iyo wax kulli way iga dhamaadeen. waxay yar ahire waxay yaro igu hore waa iska gaday. waxaan dhahay beer iska bilowd si dadka Kenyaankan hadda beer ay shaqadooda beer tahay beer iska bilowaan dhahay. markaan bilowna biyo ma jirin meeshaan. geedaha markaan meesha ku abuur meeshaan duura ahayd biyo ma jirin 2010 ahayd. waxaan isticmaalay warta waa iga fogeyd 4 kilomitir wax saas ay iga jirtaa warta Baanas. waxaan isticmaalay kareetaan isticmaalay anoo kareetada isticmaalay saas ahayd rasiid al dhaha ay imaade dadaalkayda fiiris taangigana meesha lagu dhisay marka ilaa qoday oo lii dhisay ilaa had aad arkaysiin taangigana hadda bartan ku waraabinaya alxamdulillah saana jirta. Maxamed waxa uu sheegay in beerta ay tahay ganacsi laga helo dhaqaalo wanaagsan isagoo carabka ku dhuftay in hadda halka kaliya ay wax ka soo galaan ay tahay beerta. dadkan waxaan u sheegaa hal iska jeefin hal kaca beer hal abuur maalin kasta gaajil anaga gaajil mishaagin kar tafadal beer hal abuur beer waa baxaysa waana beecshare ana hadda dukaan waa iska xire xoolo kale ma qaba dadtayda beer lay waay waana ilmahayda hadda iskuul ay ku jiraan dugsi ay ku jiraan haye nolol fiican aan ku jiraan. marka hal dhayn beerley nolol cun waay mas'uul u suqa hal dhayn saasaan dhaa insha Allah. Maxamed Wayaame ayaa inta badan hadalkiisa ku soo celceliyay in beerta ay tahay ganacsi. waxa uuna ugu baaqay bulshada gobolka Waqooyi Bari in lagu dadaalo tabcashada beeraha isagoo si qaas ah oo la hadlay dhalinyarada waxbaratay ee ka cabanayo shaqo la'aanta. dhalinyarada waxaan dhahaa dhalinyarada shaqo raadinayso oo iskuul ka baxday waxaan dhahaa beer bacsharo waay. hadda 3 bilood aan sugaa beertan inaan go'o 3 bilood hadaan sugaa 6 boqol kun 7 boqol kun qarashka dadka gooy waa helaa maxaa loogu dhimanaa marka darbiga maxaa loogu dhimanaa. waxaan dhahaa marka nin kasta beer bacsharo waay waana la kari karaa meeshaan intee way dhahina meeshaan hadda aan joogno Baanas waay. hadda waxa u egtay Kenya amal marka beer hal la bilaawo Mandheera County gaajaha laga baxa insha Allah taasaan dhahaa beeraley tii kale hadda beeraley waxaan dhahaa oo Mandheera County oo mise adduunka joog beer bacsharo waay waana noqonaysa waxaad ka fikirto waxa ma karaa hadda beer Mandheera kama bacd meeshaan kulaal kama bacd ma aha. hadda shamuuraydan aan abuuray shamuuray horta ugu bacda meeshaan oo dhul kuleelkan shamuuraykan hadda kaari mutamawana laha shamuuray oo 47 bir hadda la gaar waa la goynaa. laba roob biyaraan ku bacda hadana laba roob hadda la hela waa arkaysin kulay ba saay u baxahayd. marka geelay amal ma aha shamuuray ugu fiican. marka dadka oo ii sheegay dadkaan oo hadda xoolo dhaqatada iyo oo beeraleyda saaxiib oo jiraankayda waxaan u sheegaa geelay iyo xoolo dhaqatada yaani geel iyo oo lo iyo waxa saar la iska dhaafo hal bilaaw shamuuray hal bilaaw markasta ma cabaada karna anaga dadka Kenyaanka kale dad oo gaajo ka cabaada ma la arkay laakiin Soomaali hadaan nahay Northeastern hadaan nahay saacad kasta waa cabaadayna roob hadaa helna beer lama abuuray ul Ilaahay waa nasi. had waxaan daawo lagu buufinaana ma jirto ambulooya ma jirto saan lay ku baad ma maqlaysaa. Cabdi Qafaar Umar Ibraahim
Cabdi Qafaar Habbi, warbaahinta Star, ismaamulka Mandheera.